Ismaaciil Cismaan taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka NISA oo hadda ku nool waddanka Mareykanka ayaa hay-adda NISA ku eedeeyay in ay ku xadgudubtay anshaxa lagu dhaqo hay-adaha sirdoonka caalamka isaga oo cabir aragtidiisa ku aadan hadal ay shaacisay hay-adda NISA. Ismaaciil waxa uu tilmaamay in ay gaf weyn ahayd in hay-ad sirdoon ay bulshada la wadaagto eedayn la xiriirta sirta qaranka oo loo haysto qof wariye ah, taas oo beddelkeedana ay ahayd in ugu yaraan haddii laga fursan waayay xogta la siiyo warbaahinta qaranka oo ay ka warbaahin ahaan shaaciso. hay-adda nabad sugidda ma aha, maxkamad ma aha, booliisna ma aha, sharci ahaan iyo ka dowladnimo ahaana maaragtay waa ku qalbanayd in ay baraha bulshada soo dhigto eedeyn ay u jeedinayso wariye. waxa haddii uu wariyaha dembi galay ama wax loo haysto oo inkastoo dembiyada lagu eedeeyay in dembiye aad culus waxay ahayd inay raacaan oo ay la hadlaan hay-adaha khuseeya arrintaas. haddii bulshada lala wadaagaya baraha bulshada la gelinayna waxay ahayd in wasaaradda warfaafinta ama soona loo dhiibo ayaga ay maaragtay ay qoraan, laakiin in hay-addii nabad sugidda ay qorto xoogaa waxay ahayd arrin aad la yaab ula. mana ahayn mid laga filayo hay-ad sirdoon saas u dhaqanta dunida inay jirto umalaynayo aan Soomaaliya ka ahayn. marka kulli waxa ka dhaxeeya hay-adda sirdoonka iyo idaacadda VOA waa iska soo bixi doonaan. idaacadda VOA waxaa iskale wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. eedeynta noocaasana ahna uma qaadan doonto mid fudud oo kulli way ka jawaabi doontaa, laakiin waxaa looga fadhiyaa maxaan ku ihahdaa hay-adda nabad sugidda inay diyaarsato cadaymihii eedeymaha ay u jeedisay wariyaha Haarun Macruuf haddii ay wax ka jiraan. tallaabada ay hay-adda nabad sugidda ku dhawaaqday ayuu tilmaamay in ay tahay mid aad looga habboonaa, laakiin hadda looga fadhiyo in ay soo caddayso eedeynta ay samaysay. waxaa looga fadhiyaa dowladda federaalka Soomaaliya inay caddayso eedeymaha ay baraha bulshada soo dhigtay oo lagu eedeeyey wariye Haarun Macruuf in uu dembi qaran uu galay islamarkaasna uu ku xadgudbay maaragtay anshaxa saxaafadda. kulley waxa loo fasiran karaa waxa waaye in uu xiriir la leeyahay kooxda al-shabaab, islamarkaasna anshaxa saxaafadda marka la yidhahdana waxay u eg tahay in uu kooxda al-shabaab uu lacag uga iibsanayay xogaha uu ka helo. marka waxaa laga rabaa cadaymihii ayaa laga rabaa. baysan cadaymaha soo bandhigina kulley dowladda Soomaaliya waa ceeb bay dhex fadhisaa, waa inay tallaabada ugu habboon ka qaadaa maamulka iyo mas-uuliyiinta hay-adda nabad sugidda. Haarun Macruuf oo ah wariye ka tirsan VOA horena ula soo shaqeeyay BBC-da ayaa aad wax uga qora arrimaha kooxaha xagjiriinta, ammaanka iyo siyaasadda Geeska Afrika. wuxuu hore uga soo qayb qaatay diyaarinta buugga Inside Al-Shabaab oo ay wada qoreen isaga iyo Dan Joseph. hadda waxyaabaha Haarun Macruuf lagu eedeeyay waxaa ka mid ah inuu lacag ku siiyo xubno al-shabaab ka tirsan helidda xogaha al-shabaab. qoraal kooban oo ay NISA soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa Haarun lagu eedeeyay inuu halis ku yahay shaqada hay-adda, lama sii faahfaahin sida uu halis ugu yahay, isla markaana lama soo bandhigin caddeymo xaqiijinaya eedeynta.